أنا جيسجنا وحلينا إليها ونحرسته qoyskii asxaabtii iyo qaraabadu ka tageen samir man Allah ka siiyo in badan taariikhdiisa waa laga hadlay qaatimadiisana Ilaahay waxa uu ku sugay in uu shahiido isagoo difaacaya dalkiisa waliba xilli dhagaha dadka Soomaalida ay ku badan tahay in loo istaago sidii wadankan loo difaaci lahaa maadaama cadaawada iyo dhibaatada Soomaaliya ka jirta haatan aysan ku koobnayn al-shabaab oo kaliya oo uu soo kordhay cadow kale oo haweysanaya dhulka Soomaaliyeed inta ay nool yihiin taliyayaal ama saraakiil ama ciidan geesiyaal oo Soomaaliyeed sida taliye Sulnuge waxa hubaal ah in Soomaaliya ay dhulkeeda difaacan doonto si kasta oo ay dhibaato ugu jirto dagaalka qawaarijta ay kula jirto haddana gacanta kale waxay Soomaaliya diyaar u tahay in ay difaacdo dalkeeda dhimashada taliyaheena waxayna xasuusinaysaa in dhammaanteena waajib uu naga saaran yahay in aan u dhiman karno ama baan u shahiidno inagoo dalkan difaacayna mar kale waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto qoyskiisa eheladiisana samir man Allah ka siiyo shacabka Soomaalida oo dhanna waxaan u rajaynaynaa in ay iyaguna samir man Ilaahay ka siiyo ana u ducayna marxuumka Ilaahay jannatul firdaws inuu siiyo